saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. Sheekada filimkeenna waxay ku bilaabanaysaa naag dhuumanaysa xilli habeena, waxayna sidatay ilmo yar oo ay ayada dhashay. Sidoo kalena ayadu waxay u muuqatay inay khatar ku jirto qof ayaana ciirsanayay. Intaa kadibna cunugeeda waxay uga tagtay meel u dhow xarunta xanaanada carruurta. Carruurta aan qoyska lahaynna waxay degan yihiin xaruntan. Intaa dabadeedna cunugeeda meesha ayay dhigtay. Sidoo kalena warqad ay wax ugu qortay ayay marada u gelisay. Kadibna goobta ayay isaga tagtay. Haddana muuqaalkeenna xiga waxaan aragnaa sanado kadib, welina dagaalku wuu socday. Cunugii yaraana wuu koray waxaana loo bixiyey Peter. Carruurta xarunta agoonta ku jirtana wax cunaa ma helayn dagaalka dartii. Sababtaa darteedna carruurtan waxay u muuqdeen kuwo murugaysan sidoo kalena xanaaqsan. Halkaana Peter wuxuu kula saaxiibay wiil kale, isla markiina wuxuu wiilkaa u sheegay inuu u malaynayo in milkiilaha meeshaan ay hunguri weyn tahay. Cunto nagu filanna way haysataa laakiin nama siinayso. Sidoo kalena dadka waxay u sheegaysaa been ah in dagaalka dartii aysan wax cuntaa haysan. Cuntada oo dhanna waxay u kaysatay nafsadeeda. Intaa kadibna Peter iyo saaxiibkii waxay go'aansadeen in si qarsoodi ay u aadaan qolkeeda, sidoo kalena ay soo fiiriyaan. Markay naagtu qolka carruurta aadana, ayagoo fursadda ka faa'iideysanaya, Peter iyo saaxiibkii waxay galeen qolkeeda. Isla markiina meesha waxay ka heleen cunto badan oo ay nafsadeeda u kaysatay. Carruurtuna markay arrintan ogaadeen aad bay uga xanaaqeen habdhaqankeeda. Sidoo kalena qaar badan oo ka mid ah carruurta xarunta agoonta ayaa la waayay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay. Waxayna kaloo meesha ka heleen lacag badan, taasoo ka dhigan inay carruurta iibsato. Intaa kadibna Peter wuxuu helay fayl uu asaga leeyahay, wuxuuna kaloo meesha ka helay warqad ay yaraantiisii u qortay hooyadii. Haddana wuxuu bilaabay inuu akhriyo warqadda ay hooyadii u qortay. Waxayna ku tiri, wiilkaygiioo ma aadan i arag, laakiin waxaan hubaa in maalin maalmaha ka mid a aan labadeenna wada kulmi doono. Hooyadiina sidoo kale waxay u sheegtay inuusan asagu ahayn ilmo caadiya, adiguna waxaad tahay mid qaasa, waxaana u dhalatay inaad wax weyn samaysay. Isla markiina carruurtu waxay dareemeen in qof uu meeshaan u soo socdo, sidaa darteedna waxay u carareen dhanka qolkooda. Haddana maamuluhu waxay ayaga aragtay ayadoo qolkeeda ka sii baxaya, waxayna ku eedaysay inay wax ka xadeen. Intaa kadibna Peter asagoo xanaaqsan wuxuu ayada weydiiyey wax ku saabsan warqaddii ay hooyadii u qortay. Naagtuna isla markiiba waxay jaxjaxday warqadda, waxayna asaga ku tiri, run maaha warqaddan, waana sheeko been abuura, adiguna hooyadaa wax warqada kumaysan soo qorin. Peterna markuu arrintan ogaaday wuu murugooday. Saqdii dhexe ee habeenkaana dad aan la garanayn ayaa halkan yimi. Markay ilmaha hurdayeen, sidoo kalena saqafka qolka ayay ka soo degeen ayagoo xarga wata. Intaa kadibna waxay bilaabeen in carruurtii qolkaa joogtay ay mid mid u qaataan. Intii lagu gudi jiray isla waqtigaana Peter iyo saaxiibkii way soo kaceen. Sidoo kalena waxay bilaabeen inay meeshaan isaga baxsadaan si ay nafsadooda u badbaadiyaan, laakiin waa la qabtay ayaga. Kadibna waxaa la geeyey saqafka sare. Intaa kadibna dhammaan carruurta waxaa la saaray markab, kadibna wuu shiraacday. Nimanka carruurta afduubtana waxay ahaayeen burcadbadeed, meel kale ayayna u wadeen carruurtan. Markabkuna markuu dhaqaaqay, Peter saaxiibkii wuu ka booday, wuxuuna fuulay saqafka guri meesha u dhowaa. Sidoo kalena Peter wuxuu u sheegay inuu ka soo boodo markabkan si uu isku badbaadiyo. Si kastaba ha ahaatee, Peter wuu awoodi waayey inuu soo boodo, sababtoo ah wuxuu ka cabsan jiray inuu ka boodo meelaha sare. Intaa kadibna Peter iyo carruurtii kale waxaa meesha ka soo qaaday markabkii duulayay. Intaa dabadeedna markay horay u socdeen markabkoodii waxaa soo weeraray ciidamo kale. Kooxdii burcadbadeedda ahaydna waxay iska caabiyeen weerarka. Kadibna dagaal xooggan ayaa dhex maray ayaga. Labada kooxoodna waxay ku dagaalamayeen dhul siman. Muddo kadibna burcadbadeeddii waxay ku guulaysteen inay ka badbaadaan weerarka, sidoo kalena ay goobta isaga baxsadaan. Maalintii xigtana waxay yimaadeen meel qariiba. Carruur badan ayaana meeshaan joogta uu ku jira Peter, waxaana carruurtan gacanta ku haya kooxda burcadbadeedda. Halkan ayayna ku hayaan. Hogaamiyaha burcaddaanna wuxuu ahaa mid naxariis daran, waxaana la oran jiray Blackbeard. Carruurtaanna wuxuu u soo afduubtay inay u jabiyaan buuraha, sidoo kalena uu howlo adag ku qabsado ayaga. Intaa kadibna hogaamiyaha burcadbadeedda wuxuu meesha ka helay dhagaxa kiristiyaalka cagaaran ee qaaliga ah, kadibna wuu qaatay. Hawshaanna waxaa loo xil saaray Peter. Intuu hawshiisa watana wuxuu la kulmay maamulaha meeshaan. Peter ayaana la sheekaystay asaga, wuxuuna weydiiyey muxuu dhagaxan kiristiyaalka uga duwan yahay dhagaxda kale. Maamulahana wuxuu ugu jawaabay, dhagaxan waa qaali, wuxuuna ka kooban yahay awood sixir oo sarreysa. Peterna ma uusan rumaysan asaga. Markuu arrintaa maqlana mar kale wuxuu asaga weydiiyey waxa uu dhagaxan ku samaynayo Blackbeard. Ninkiina wuxuu ugu jawaabay in sirta arrintan oo kaliya uu garanayo Blackbeard. Habeenkiina waxaan aragnaa Peter oo meel fadhiya, isla markiina wuxuu arkay wiil asna meesha fadhiya oo xanaaqsan. Intaa kadibna Peter wuxuu isku dayay inuu la saaxiibo wiilka, laakiin wiilkii ayaa ka diiday arrinta, wuxuuna ku yiri, ma saaxiibi karno sababtoo ah anigu maahi qof wanaagsan, sidaa darteedna anigu ma istaahilo inaan qof saaxiib la noqdo. Markuu wiilku sidaa ku yirina meesha ayuu isaga tegay. Marka xigtana intay qodista wadeen, Peter wuxuu helay dhagaxii kiristiyaalka cagaarnaa. aad buuna u farxay
baxay asaga isla markiina nimankii kale markay arrintan ogaadeen qas ayay meesha ka bilaabeen waxayna rabeen in dhagaxan qaaliga ay ka qaataan wiilka yar sidoo kalena way hareereeyeen asaga ujeedadooduna waxay ahayd inay abaalmarin ka helaan hogaamiyaha burcadda markuu u diiday in dhagaxa uu siiyo Peterna way dacweeyeen asaga waxayna sheegeen in dhagaxan uu xadi rabay Blackbeardna markii loo sheegay in Peter uu isku dayay inuu xado dhagaxan qaaliga ah cunuga yar wuxuu ka soo tuuray meel sare si uu u ciqaabo asaga laakiin si lama filaana Peter wuxuu u bilaabay inuu sabeeyo hawada intuu sii socday markuu dhulka u soo dhawaadana si xun ayuu dhulka ugu dhacay kadibna wuu miir beelay inta kadibna markuu soo kacay wuxuu is arkay asagoo qol jooga markuu banaanka u soo baxayna Blackbeard ayaa u yimid asaga wuxuuna weydiiyay xaqiiqada sidoo kalena kuma tahay adigu macirfiid baa tahay sababtoo ah waxaan arkay adigoo hawada sabaynayo sidaas ku duushay adiga inta kadibna Peter wuxuu asaga u sheegay wax ku saabsan taariikhdiisii hore iyo hooyadii sidoo kalena hooyaday waxay aniga ii sheegtay inaan ahay qof qaas ah oo awood sare leh laakiin Blackbeard ma uusan rumaysan asaga inta dabadeedna markuu qisadiisa uga sheekeeyay asaga wuxuu ku yiri cirfiid iyo bilaadan isku daran baa tahay adigu marka waxaan ka shaki qabaa inay idili doonti aniga cabsida awgeedna Peter waxaa loo diray xabsiga mar kalena Peter wuxuu meesha kula kulmay ninkii murugaysnaa ee meesha fadhiyay markii horena maadaama uusan soo dhaweynin hadda wuu soo dhaweeyay sidoo kalena saaxiibo wanaagsan ayay noqdeen inta kadibna wiilkaas Peter wuxuu ku yiri hawlwalin waxaan ka caawin doonaa inaa xabsigan ka baxsatid inta dabadeedna waxaan aragnaa ayagoo xabsiga ka baxsanaya laakiin isla markiiba maamulihii ayaa qabtay ayaga inta kadibna Peter ninka wuxuu ku qanciyay inuu la baxsado ayaga kadibna wuu ogolaaday inta dabadeedna saddexdoodii waxay bilaabeen inay meeshaan isaga baxsadaan ayagoo wiishka kaashanaya waxayna ku dhawaadeen markabkii duulayay laakiin dhinaca kale askartii burcadda ayaa arkay ayaga sidoo kalena waxay ka jareen xarigii nasiib wanaagna halkii ay dhulka ku soo dhici lahaayeen waxay ku dhaceen shiraaca markabka inta kadibna ayagoo aan wax waqtiga iska lumin waxay raaceen markabkii duulayay halka Blackbeardna uu daawanaya waxaanoo dhan maamulaha iyo saaxiibka Peterna ma aysan aqoonin sida loo wada markabkan sababta awgeedna ma xakameyn karin markabkan waxayna kula dul dhaceen kaymaha dhexdooda nasiib wanaagna wax dhibaato kama aysan soo gaarin meesha waxayna ku guuleysteen in nafsadooda ay badbaadiyaan inta kadibna waxay sii wateen safarkooda markay habeen noqotayna gaajo daran ayay dareemeen sidaa darteedna waxay bilaabeen inay cunto ka raadsadaan kaynta dhexdeeda ugu dambeyntiina markay wax cuneen halka ayay cabaar ku nasteen wax yar kadibna dhaqdhaqaaq ayay ka dareemeen aagooda inta dabadeedna feejignaan ayay galeen isla markiina shimbiro waaweyn oo la yaab la ayaa soo weeraray ayaga shimbirahaana waxay u muuqdeen kuwa qariiba sababtoo ah waxay ahaayeen kuwa cabsi leh jirka shimbirahaana wuxuu ka koobnaa qayb lafaa iyo qayb shimbir caadi ah inta dabadeedna saddexdoodii waxay bilaabeen inay halkaan isaga cararaan si ay u badbaadiyaan nafsadooda markay waqti baxsanayeenna qabiilkii meesha deganaa ayaa ka badbaadiyay shimbiraha kadibna waxaa ayaga loo geeyay boqorkii qabiilka inta kadibna boqorku Peter saaxiibkii wuxuu weydiistay inuu la dagaalo ninka ugu geesisan qabiilkooda inta dabadeedna dagaal ayaa dhex maray ninka iyo Peter saaxiibkii si xun ayaana loo garaacay asaga dhinaca kalena Peter markuu arkay saaxiibkii oo la garaacay aad buu u damqaday wuuna fiirsan waayay inta kadibna wuxuu ka soo booday meesha si uu u badbaadiyo saaxiibkii kadibna wuxuu bilaabay inuu la dagaalo ninkii intuu dagaalka socdayna boqorka wuxuu arkay katiinka Peter kadibna wuxuu joojiyay dagaalka inta dabadeedna qof walba oo meesha joogay wuxuu u sheegay in Peter uu yahay wiil geesiya waana rajadeena ugu dambaysa asaga sidoo kalena wuxuu naga badbaadin doonaa Blackbeardka naxariista daran iyo burcadiisa inta kadibna Peter iyo asxaabtiisa waa la sii daayay sidoo kalena waxaa laga raali geliyay sidii xumayd ee loola dhaqmay ayaga haddana boqorku Peter wuxuu ka codsaday inuu duulo si uu awoodiisa u hubiyo laakiin Peter maadaama uu meelaha sare ka baqi jiray uu duuli waayay asaga inta kadibna boqorku wuxuu asaga siiyay muddo 2 maalmood ah si uu arrintan u sameeyo haddii aad labada bari awoodaada ku muujin weysi oo aad duuli weysina adiga iyo asxaabtaadaba waan dili doonaa halkaana waxaan ka aragnaa gabar saaxirada oo Peter geysay qolka sixirka inta kadibna waxay asaga u sheegtay sheekada waalidiintii iyo inay ahaayeen dad geesiyaal ah oo noloshooda oo dhan ku soo qaatay siday u joojin lahaayeen Blackbeard intii lagu guda jiray sheekadaana waxaan ogaanaynaa Peter hooyadii inay ahayd jinni sidoo kalena ay jeclaatay nin boqor wuuna guursaday ayada Blackbeardna markuu arrintan ogaaday wuu maseeray kadibna wuxuu weeraray Peter waalidiintii si uu u kala geeyo ayaga inta kadibna wuxuu xoog ku guursaday Peter hooyadii sidoo kalena weerarka waxa ku dhintay Peter aabihii inta dabadeedna Peter hooyadii wiilkeeda waxay geysay meel u dhow xarunta agoonta halka ayayna uga tagtay muuqaalkaasna waxaan ku soo aragnay bilowgii filimka inta kadibna Peter hooyadii waxay ku soo laabatay magaalada si ay uga aargudato Blackbeard inta dabadeedna dagaal xoogan ayay la gashay asaga kadibna Blackbeard meel ayuu ku xiray Peter hooyadiis inta kadibna
kadibna Better markuu sheekadan dhageystay aad buu u xanaaqay wuxuuna rabay inuu ka aarguto Blackbird intaa wixii ka dambeeyayna nafsadiisa si adag ayuu u diyaariyay dhinaca kalena maamulaha intuu keynta dhex socday waxa asaga qabtay Blackbird iyo askartiisa intaa kadibna waxa asaga weydiiyeen wax ku saabsan Better si uu nafsadiisa u badbaadiyana burcadda wuxuu u sheegay in qabiil meeshan degan uu la joogo Better intaa dabadeedna Blackbird iyo askartiisii waxay weerar xoogan ku qaadeen qabiilka kadibna way laayeen boqorkuna markuu arrintan arkay saaxiradda wuxuu ka codsaday inay badbaadiso Blackbird iyo saaxiibadii sababtoo ah waa muhiim in la badbaadiyo noloshooda maadaama Better uu yahay qofka kaliya ee ka adkaan kara shaydaanka intaa kadibna saaxiraddu waxay halka ka soo badbaadisay Better iyo saaxiibadii iyadoo adeegsanaysa awoodeeda sixirka intaa dabadeedna Blackbird wuxuu bilaabay inuu ceyrsado markuu ogaaday ayaga dhinaca kalena yaxaas weyn ayaa soo weeraray Better iyo saaxiradda markay webiga ka gudbaayeen intaa kadibna Better biyaha ayuu ku dhacay isla markiina yaxaaskii ayaa mar kale soo weeraray asaga laakiin intuusan cunin ka hor gabaray maanya ayaa meesha timi oo badbaadisay asaga intaa dabadeedna Better iyo saaxiradda waxay gaareen magaalo ay ku nool yihiin cirfiidyo halkaana waxa ku yaalay albaabka laga galo cirfiidyadan meesha ay ku nool yihiin dhinaca kalena intaysan meeshan iman ka hor waxa halkaan uga soo hormaray Blackbird sidoo kalena meeshan ayuu ku sugayay ayaga sababtoo albaabka meeshan ma furi karin asaga waxaana albaabkan kaliya furi kara qof cirfiida intaa dabadeedna Better iyo gabadhii la socotay meesha ayay yimaadeen Betterna maadaama uu cirfiid ahaa markuu albaabka taabtay horay ayuu uga furmay asaga isla waqtigaana waxa meesha soo weeraray Blackbird iyo raggiisa cirfiidyada meeshan ku noolna waxay si wada jira u weerareen Blackbird dhinaca kalena askarta Blackbird si adag ayay ula dagaalameen cirfiidyada labada kooxoodna si siman ayay u dagaalamayeen dagaal weyn ayaana dhex maray labada dhinac intaa kadibna Blackbird wuxuu gacanta ku dhigay Better sidoo kalena wuxuu ku sigtay inuu dilo asaga laakiin Better saaxiibkii ayaa markabkiisa ku dhuftay markabkii uu la socday Blackbird sidaa darteedna Blackbird wuxuu kontarooli waayay diyaaradiisa Betterna asagoo fursadda ka faa'iideysanaya ayuu goobta isaga cararay intaa dabadeedna Better wuxuu yimi meel sare sidoo kalena wuxuu ku qasbanaa in meeshan uu ka soo boodo si uu nafsadiisa u badbaadiyo laakiin weli wuu baqaayay mana boodi karin dhinaca kalena gabadhu si geesinimo leh ayay ula dagaashay askartii burcadda mid kasta oo ka mid ah ayagana way ka adkaatay sidoo kalena hadda waxay bilowday inay la dagaasho Blackbird saaxiibkii Betterna asna wuxuu bilaabay inuu la dagaalo ninkan dagaal kadibna Blackbird wuxuu meesha ka soo tuuray Better saaxiibkii Betterna markuu arrintan arkay aad buu uga xumaaday sidoo kalena wuxuu ku qasbanaa inuu badbaadiyo nolosha saaxiibkii qiimo kastaba ha ugu kacdee intaa kadibna si geesinimo leh ayuu meesha uga soo booday si dhaqsiyalana wuxuu uga daba tagay saaxiibkii wuuna soo badbaadiyay asaga sidoo kalena wuxuu la yaabay inuu duulo intaa dabadeedna markuu saaxiibkii soo badbaadiyay wuxuu geeyay meel ammaan ah haddana mar kale Better wuxuu u baxay inuu soo badbaadiyo saaxiradda sidoo kalena cirfiidyada ayaa ka caawinayay inuu sidaa sameeyo intaa kadibna markay cirfiidyadu midoobeen waxay weerareen Blackbird aad bayna u dhibeen sidoo kalena wuu cabsaday asaga intaa dabadeedna Better wuxuu jabiyay markabkii Blackbird haddana sidaa ayuu ku burburay markabka halkii uu Better ka dhici lahaana Blackbird ayaa meesha ka soo dhacay sababtoo ah markabkiisii wuu burburay isla goobta ayuuna asaga ku dhintay sababtoo ah meel sare ayuu ka soo dhacay intaa dabadeedna cirfiidyadu Better waxay u sheegeen fariintii hooyadii taasoo ahayd inuu halkan joogo sidoo kalena uu difaaco magaalada cirfiidyada intaa kadibna wuxuu ogolaaday arrinta sidoo kalena wuxuu bilaabay inuu ooyo sababtoo ah hooyadii ayuu arkay markiisii ugu horeysay sidoo kalena wuxuu dib u xasuustay hadalkii ay hooyadii horay ugu tiri asaga kaasoo ahaa inkastoo aadan i arag maalin maalmaha ka mida waan wada kulmi doonaa muuqaalkeena xigana waxaan aragnaa Better oo ka tagay dunida cirfiidyada sidoo kalena wuxuu ku laabtay caalamka aadanaha asagoo qabiilkii reer miyiga ahaa kaashanayana dhammaan carruurtii xarunta agoonta joogtay ayuu ka haystay intaa kadibna wuxuu ayaga weydiistay inay joogaan caalamka cirfiidyada sababtoo ah wuxuu ogaa inay halkan farxad ka heli doonaan filimkeenana wuxuu ku soo dhamaanayaa carruurta oo wada faraxsan haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeena like saar sidoo kalena channelkeena ku soo biiro subscribe dheh waa ku mahadsan tahay la joogistaada